haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid ayaa ku ilaalin yaa ku ilaalin ilaahay siduu kugu ilaalin siduu doono meeshuu doono xilliguu doono ilaahay amarkiisa ilaali bas salaadu waa amarka ilaahay soonku waa amarka ilaahay islaamnimadu waa amarka ilaahay amarka ilaahay uu ku amray adiga ilaali bas meel kastoo joogto ilaahay amarkiisa ku ilaali maaha masjidka dhexdeeda keliya meel kastoo joogto noloshoo dhan baa la rabaa ilaahay inaad kaga cabsoto dhallinyarnimadaada ilaahay kaga cabso oo da'weynada ilaahay kaga cabsado oo faqriga ilaahay kaga cabso oo qinada ilaahay kaga cabso oo safarkaaga ilaahay kaga cabso oo xadarkaaga ilaahay kaga cabso oo mujtamaca dhexdeeda ilaahay kaga cabso oo khalwadaada ilaahay kaga cabso markaad keligaa tahay ilaahay ka cabso mas-uuliyadda ilaahay kaga cabso haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid ilaahay baa ku ilaalin 40 nawawiga jardani rahimahullah sharxiisa wuxuu ku sheegay qisa cajiiba xadiiskaas raabica radiyallahu anha habeen iyadoo tukanaysa ayuu nin tuuga aqalkeega u soo dhacay baa la yidhi markaasuu arkay haweenay iska tukanaysa oo aan in yarna aan cabsanayn ma cabsanayso way maqashaa shanqadha inuu tuuga aqalka u soo dhacay waa arkaysaa laakiin ma dhaqaaqin meesheediina kamay dhaqaaqin salaadiina kamay bixin waxaa la yidhi wixii aqalka alaab u taallay alaaba umay oline wixii yaallay markuu urursadu yidhi bax iridii uu ka soo galay baa ku noqotay maaragtayna gidaar bay ku noqotay derbi markaasuu yaa buu soo noqday haddana wuxuu yidhi halkeed ka soo gashay halkaad ka soo gashay maan albaabka uu furan yahay uu arkaa mar alle markuu albaabka soo gaarana wuxuu arkaa albaabka u xidhan derbi uu madaxa ku dhiftaa gidaar markaasuu yaa haddana uu soo noqdo daragshigii uu dib u qaatay daragsiyoonkii markaasuu halkiibu isleeyahay wata halkaad ka soo gashay furana ka bax markuu gaarana meesha u xidhan tahayba alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa layidhi ilaa salaadda ay ka baxaysay iyadii u sugay wuxuu yidhi kolka salaaddii ka baxday buu ku yidhi wixii aan kaa qaato aniga kuu dhigay albaabkii halkuu iga xigay ii sheeg buu ka yidhi 40 nawawiga ayuu ku sheegay jardani sharaxaas qisadaas markaas ay ku tiri anigu albaabka ma xidhin albaabka xagga sare laga xidhaa bay tiri xagga sare ma doonaysaa in albaabka laga furo haa toobadkeen bay ku tiri ballanna qaad ilaahay inaad u noqonayso oo dembi dambe aad ku dhacayn oo tuugada aad dhaafayso ilaahay u ballan qaad waa iga ballan buuri maanta laga bilaabo inaad toobad keeno hal mar keliya markuu sidaa yidhi tiri albaabkii waa kaasa ka bax albaabkii buu ka baxay way sujuudo waxay tiri yaa rabbi anigu waa kaa qoloftiisii waa soo jeediyey qalbigiisa adiga ku shaqal ilaahu qalbigiisa soo jeedi bay ku tiri sidii buu ku toobad keenay